السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Maxamuud. waxaan rabaa inaan wax yar idiin sharaxo qaybta barashada baabuurka ee macadka Baashi Academy. runtii galaaskan waxaan bilownay ama kooraskan baabuurka waxaan bilownay 5 bilood ka hor. caadi ahaan macadka Baashi Academy wuxuu dhigaa luqadaha intiina badan aad garanaysaan. systemkan inaanu baabuurka dhignana anaga marka hore maba ahayn program schoolka ka yimi maadaama ardadanada ay reer Germany u badan yihiin ama reer Deutschland u badan yihiin ay arday badan wax naga codsadeen in aanu sameeyno program gaariga lagu baranayo maadaama gaariga xogaa uu iska yara adag yahay qaybtiisa su'aalaha waliba theory-ga oo runtiina ah qayb muhiim ah oo qofka ay tahay inuu qawaaniintii uu gaariga ku kaxaynay inuu barto dadka qaar waqti dheer kaga lumayo qaar ay ku soo dhacayaan markii dhowr jeer ardayda ay nagu soo celceliyeen waxaanu isku daynay markii ugu dambeysay inaanu bal program sameeyno oo aanu isku dayno inaanu theory-ga turjuno alxamdulillah rabbil caalamiin theory-ga waa ku guuleysanay inaan turjuno muddo hadda 5 bilood ayaanu process-kaasi uu soconayay oo arday fara badan ay wax ka barteen waxaanu dejinay process ah in su'aalihii Soomaali loo bedelo ardaygana 28 maalin 10ka lagu siiyo yani gaarigii su'aalihii in 28 maalin ardayga iyadoo Soomaali lagu turjumayo in 28 maalin lagu qaybsiyo ardayga marka 28 maalin imtixaanka aadana falillahi alhamdu waa sida aan ugu talagalay ardaygii u sii baahda ama sii joogo aan imtixaanka aadin sababa isaga u gaar ah noqoto ama sababaha iskoolka imtixaanka ku mari lahaa maadaama aan anagu imtixaanka qaadayn oo ardaygu meesha uu joogo imtixaanka ka sameeynaya ama iskool labaad oo imtixaanka ka sameynayo hadiiba iskoolkii uu fursad u waayo maadaama corona iyo xiska jiraan ama siyaabo kale ardayga dib ugu dhaco waxaanu sameynay fursad labaad oo ardayga iska samt markuu uu soo diiwaan galiyo in 3 bilood galaaska la siiyo koorsada waa 3 bilood 28 maalin ayaad 10 ku qaadanaysaa 28 maalin kadib imtixaanka ayaad aadaysaa haddii aad tahay qof doonaya inuu degdeg u xusameeyo ee processka raacaya haddii 28 maalin kadib aad imtixaanka sameyn kari weydo caqabada adiga ku gaara ama iskoolka aad imtixaanka ka sameyn lahayd oo dib ku dhigay dabcan iskoolka markaad imtixaanka sameynaysid shuruudo badan buu kugu xirayaa inaad eesta hilfa haysatid inaad koorsadii labada week ahayd soo qaadatay in aad dhakhtarkii indhaha haysatid waxaas oo dhan ayuu kaaga baahan yahay marka haddii ay dhacdo waxaanu ardayga fursad u siinaa in 2 bilood oo dambe oo iskoolka ka sii tirsanaado arday kasta ilaa uu isagu iska xiro yiraahdo imtixaanka waan maray casharadiisii maadaama la baray oo la qaybsiyo loo sharaxay haddana wixii su'aal ka soo noqdo loogu celceliyo oo iskoolka ka sii tirsanaado in iska samti marka koorsada waa 250 euro waqtiga ay haysato waa 3 bilood koorsada waxay ku soconaysaa 28 cisho 2 bilood oo marka extra ama dheeraadana wada haysataa oo iskoolka ka sii tirsanaanaysa qaabkaas ayaan runtii u bixinaa bishii waxaan soo bilownay koowaad ee sanadkan hadda ku jirno arday fara badan ayaana ka faa'iideystay muddada 5 bilood qofkii danaynaya inuu nagu soo biiro runtii markasta waan soo dhaweynaynaa waliba bishan waxaan rabnaa inaan arday badan oo cusub qaadano waxaanu kor idinku dhaafi doonaa insha Allah telefoonka iskoolka halkaas ayaan waliba WhatsApp-ka ayaan idiin soo qoraynaa halka waxaan rajaynayaa WhatsApp-ka inaad nagala soo xiriirtaan laakiin waxaan jecelnahay in aad noo soo dirtaan qoraal sababtoo ah wicitaanka inta badan lama suurtagal ma ahna ka jawaabno wicitaanada fara badan dartood waxa laga yaabaa inaad dhowr jeer ka cabataan telefoonkan wicitaankiisa lagama soo jawaabo laakiin dibka meesha jira wuxuu yahay waxaan ugu badan mashquulka sababteed maadaama telefoonku WhatsApp leeyahay fadlan WhatsApp-ka wax nooga soo qor haddii aad su'aal qabtid noo soo qor su'aasha ama cod noo soo duub si aan kuugu soo jawaabno haddii aad diyaar u tahay galaaska inaad bilowdid waxa noo soo qortaa diyaar baan ahay si aan kula soo xiriirno laakiin haddii aad soo wacdid waxa dhici karta in 2 week kadib in lagu soo waco wicitaankaagii aad looga daaho waa nasiib mararka qaar in markaba laga qabto laakiin waxay u badan tahay in inta badan aan hore lagu soo jawaabin sadarteed waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo soo diiwaan gelinaya in uu WhatsApp-ka ama cod ama qoraal nooga soo diro si aan halkaas xiriir uga wada sameeyno insha Allah billahi kariim dhammaantiin khayr badan ayaan idin rajaynayaa waxaan rajaynayaa koorsada inaan faahfaahiyay intii aan information fiican ka haynin intiina badan waxaan rajaynayaa inaad ka wada dirigsantiin laakiin inta information ka haynin waana koorso oo baabuurka dalka Jarmalka ah qoliyo waxa jira isku khaldaya gaariga dalka Jarmalka iyo kan Austria wax iska galay ma aha Austria forashenkeeda iyo kan Jarmalka wax iska galay ma laha wax oo la isdhex gelin karana ma aha dawladdu walba waxeeda gaar bay u leedahay for example kan Jarmalka waxa uu sameeyay qaabkan horteena yaala oo
saddex jawaabood ayaa su-aasha ugu badan ee looga jawaabaya meelaha qaarna laba jawaabood ayaaba looga jawaabaya laakiin kan Austria markasta afar jawaabood ayaa ugu yar halka su'aal looga jawaabaya afar su'aalood ayaa looga jawaabaya yani isku dhisayna maaha isku qaabna maaha wax la isu keeni karo la isku turjumi karana maaha ardayga waxaan u siinaa ab dalka Jarmalka ah programkiisu yahay abkaasuu la soo degaa abkaas ayaana casharada laga baraa su'aalaha dee dabcan su'aalihii oo dhan ayaa ardayga la barayaa oo su'aalo kooban lama bari karo sababtuna marka koowaad su'aalaha oo dhan inuu ardaygu Soomaali ku barto wuu ku khasban yahay sababtoo ah su'aal kastoo su'aalahan ka mid ah waynu u baahannahay waa qawaaniin berri bayna ka hor imaanaysaa inaynu marka baranno waynu u baahannahay tan ku xigtana dee su'aashii imtixaankii meeshuu ka imanayo qof og ma jiro su'aalaha hadhow imtixaanku ku imanayo qof og ma jiro saa darteed su'aal kasta inaynu baranno oo macnaheedana baranno saxdeeda iyo khaladkeeda iyo jawaabteedana baranno waa muhiim saa darteed su'aalaha oo dhan ayaanu ardayga barnaa 28 cisho ku barnaa ka bacdina imtixaanka ayuu aadaa ardayga markaas 28 cisho kadib imtixaanka diyaar u ah ardaygii markaas sii joogana 2 bilood oo dambe ayuu iskoolka sii tirsanaadaa waxaan rabaa marka wax yar inaan tusaale yar ku bixiyo halkan dad badan wax laga yaabaa inay isweydiiyaan sidee Soomaali loogu dhigayaa Furanshenka ama su'aalaha lesson-ka sidee Soomaali loogu turjumaya waxaan rabaa su'aashan oo kale inaan ku bixiyo tusaale si dadka aan idea ka haysan sida inta badan wax loo sharaxo inaan wax yar u gudbiyo for example macallinka Soomaaliga wax ku baraya wuxuu ku turjumayaa su'aashii wuu ka shaqeynayaa ka bacdina adiga laga rabaa wixii dambe inaad markii abka lagu siiyo processka lagu dejiyo inaad adigu ka shaqeysid soo marka lagu sharaxo kadib ana ku celceliso maraajac sameys for example hadda halkan waxa leeyahay su'aashan marka hore akhrino Wie verhalten sich im Bereich dieser Gefahrstück? Wie verhalten sich im Bereich dieser Gefahrstück? sidee ayaad khatartan ula dhaqmaysaa baa lagu khatartan sidee ula dhaqmaysaa meeshan khatar baa ka jirta maxaa yeelay duurjoog calaamadaas waxayna tusinaysaa meesha in duurjoog ay joogto ama xayawaan maadaama duurjoog ay meesha ka dhowdahay meesha khatar baa ka jirta khatartaas sidee ula dhaqmayna marka saddexdan jawaabood waa inaynu kaga jawaabno tan saxda ah tan ugu sarreysa waxaa la yidhi langsam auf viel achten tartiib baan u soconayaa xayawaankana waan iska ilaalinayaa waxaan leenahay waa sax maadaama calaamadda aynu aragno inagoo waddada marayna meesha xayawaan baa ka dhow saa darteed tartiib baan u soconayaa xayawaanka waa iska ilaalinayaa tan labaad abirenden und bremsen wenn viel in Sicht kommt haddii aan xayawaanka arko waan يعني gaarigan qabanaya haddaan xayawaanka arko gaariga ayaan qabanaya bremsen gaarigan istaajinaya gaarigan qabanaya yani gaarigan soo qaboojinaya si aan xayawaanku ii dhaafo tanna waa sax wadada wadada maraya haddii duurjoogta iyo dhinacuun wadada kaga soo gudubto kaga soo yaacdo gaariga inaad ka qabatid ayaa la doonaya tan saddexaad wuxuu yidhi nicht vorfield ausweichen wenn der Gegenverkehr gefährdet würde tanna waa sax wuxuu ku leeyahay haddii anigoo wadada maraya وحيوانكي ميل كديس iga soo baxo meel si kadiis kugu soo baxay marka hadee waa inaan markaas isaga jiiro waa qaacidada fiqiga ahayd laba shar markay ku yimaadaan mid ka yar baa la doortaa runtii waa wax cajiib wuxuu ku leeyahay hadii ay xayawaan ba meel kadiis kaaga soo boodiyo xayawaankii marka kama qaban kartid si uu kugu soo dhawaaday fursad aad haysatid waa inaad gaariga ka leexisid leexashana haddaad samaysid gaadiidkii kale ee dhinaca kale marayay baad ku dhacaysaa marka haddii caqabadaas ku qabsato oo labadan ka isu qabtaan inaad xayawaanka jirdid iyo inaad gaariga leexisid oo marka gaari kale ku dhacdid xayawaanka jir isaga dhib yar saasoo ka wadaa yani waad ka qaban weydii Soomaa meesha meel kadiisa buu kaaga soo baxay habayrin in badan su'aashaas way noo ku imanaysaa teoriga marka dhigataan insha Allah habayrin toos isaga soco hadaa ku dhacdi waa ku dhacdi sababtoo meel aad ka qaban kartid ma jiro marka waxa lagu soo baray inaad taxadirtid kow laba waxa lagu soo baray in markaad aragtid aad gaariga ka qabatid laakiin hadiiba ay dhacdo maxaan sameeynaya way hadiiba anoo tartiib u soconaya oo inaan ka qabto raba xayawaankii uu meel kadiisa iga soo boodo ilaa meelaha qaar baa kayna hal mar ba adigoo meel elbriqsi ku jirta arkaysa xayawaankii oo ka soo boodi fursadda ku furan maxay tahay marka gaarigii ma qaban kartid halkan oo kale wax laga yaabo wadooyinkii oo xawaaraha sare lagu mari jiray inaad ku soconaysid saa darteed halkan oo kale waa inaad xayawaanka markaas ama ku dhacdo ama ha dhaafo waana toos ugu socotid oo aadan gaariga leexleexin si aadan shil kale oo inta ka ballaaran u gelinin dabcan qaabkaas ayuu macallinku u sharaxaa ayada Soomaali lagu sharaxayo su'aalahan saddexda waa inuu saxnay halkan hoose ayuu ka tusay wuxuu yiri saddexda su'aashaada waa la saxaya looga jawaabay way noo soo qoray ka bacdina ardayga markaas loogu sharaxo waxa la tusiyaa abka
iyo say su'aaluhu isugu xigaan halkaas ayuuna practical ku sameeyaa khayr badan ayaan idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh